waxaanu ka koobannahay 3 qaybood meeli waa shaqaalaha oo 2 ah waayeel ka soo ambabaxay degmada Ceergaabo oo shaqaalihii wasaaradda ah anigoo maamulihii ah ana ah kusimihii isuduwaha iyo shaqaale dhowr ah oo ay ka mid yihiin Cabdi Warsame Xirsi iyo Xuseen Cismaan Xasan oo ay labaduba ahaayeen halkan ka soo ahaan jireen labaduba isuduwayaal waqtiyo isku xiga qolada kale waa shaqaalihii daalo deganaa ee wasaaradda shaqada uga hayay qolada labaad saddexaadna waxa weeye waa degaankii waayeelkii degaanka deganaa daalo saddexdaa ay tim oo meel 2 tahay 2 u qaybsamayso meelna noqonayso iyo meesha degaanka ah waayeelkii degaanka ah intaasaanu ka koobannahay waxaa socodka iyagu saaka uu ahaa 2 saxaafadood oo isku xigay oo ka baxay karin oo aanu garan kari weynay barnaamijka kuurgalkiisa ayaanu u ambabaxnay waxaanuna ku jiray baaritaankiisa 3 cashaanu ku jiray barnaamijka malaha horena waan uga hadlay oo waa la dhegaystay oo waan beeniyey maanta oo ay taariikhdu bishu tahay 11kii bishii afraad ee 22 waanu 3 casho baaritaan wadnay resultigii wuxuu noqday inaanu isugu nimaadno buuraha qaybaheeda kala duwan markii aanu maray inaanu daalo qaybta dalxiiska dhulkii ay degan shaqaaluhu deganaa inaanu nimaadno markii warbixintii ay noo soo dhammaatay daalo wax dhibaaba ah oo ka jira oo ka dhacay ma ay jiraan wax dhiba oo ka jira waxaan la wadaagayaa cidda kiliibkan dhegaysan doonta dawlad iyo shacabba daala inay ku jirto maalintii ay ugu wanaagsanayd wasaaradduna ay gelisay wakhti badan iyo maal badan hadday beeritaan tahay iyo haddii ay ilaalin tahay waxa wasaaradda iyo degaankuba ay geliyeen waxay geliyeen muruq iyo maalba waa geliyeen wasaaradda oo sidaa ugu tacabtay waxaan u mahad celinayaa degaanka daalo iyo wadayax ee goobtan jooga iyo kuwa maqan ee aan imanee wakhtigu u haleeli waayey waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddaydinaa nala shaqayn oo dagaalka nala gelin oo dhulka nala difaacinna waa naga tanroonta kuwa maqan ee jeclaa ee soo qaylinaya lahaa nala sugana waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin daala waxay ku jirtaa maalintii ay ugu fiicnayd garaac baan ka jirin haba yaraatee dhega laga qaadaan ka jirin dayib la jeexjeexay baan ka jirin daalo nabad dad iyo nabad dhul ayaa ka jira waxaana kiliibka aan ku wareejin doonaa akhbaarkaa aan ku wareejin doonaa oo aynu waraysan doonaa oo inoo warramaya shaqaalihii hore u joogay daalo oo buurta ku dhibanaa uu ilaalinayey oo wakhtiga gelinayey waxaan leeyahay horta waana salaamantiin aad baadna u mahadsantihiin iyaga ayaa ka warbixin doona waxaanse ku darayaa ii raalli ahaadan waxaan ku darayaa warkaan waan fahmi weynay waxaanuna u aragnaa wax la yidhi inan iyo inan Soomaaliyeed baa isjeclaa oo sheeko u dhaxaysay maalintii dambe ayaa waxa dhintay iyadoo jacaylku dee haddeer wuu iska yaryahay waagii hore heer qaran buu ahaa aad buu u weynaa waxa dhintay inankii baa dhintay markii inankii dhintay baa inantii oo ilaamiyii baynu ka soo jeednay adhigii la joogta aabbaheed u yimiyo ooyeysa aabe maxaa ku helay buu yidhi waxay tidhi aabe orgigii qoorhka ayee riyaha ayaa dhintay aabe waysaga keen dhalan doonaan kuwa kalena way inoogu jiraan adhiga dacwada inooga ilaali buu yidhi mar danbuu ku soo noqday inantii oo sidii u ooyeysa aabe maxaa dhacay buu yidhi waxay tidhi aabe orgigaasaan u ooyayaa aabe baroortu orgiga ka weyn buu yidhi
inamadii daalo ka hadlay ujeeddadu waxa weeyaan inamadii daalo ka hadlay ee isugu jiray labada nooc ee qolana waxay ahaayeen macallimiin meesha wax ka dhiga oo wasaaradda waxbarashada ka mid ah, qolana waxay ahaayeen qoladii aanu dhulka hore uga mamnuucnay ee xaabaysatada ahaa. laba masalaba waa la yaabnay oo marna labadaa qolo oo qolana waxbarashada leedahay qolana garaacatada ay tahay waxa isku daray waa garan weyne. mid kalena waa la yaab oo waxa wasaaradda daaqa oo ay og yihiin sida ay dhulka ugu hawlan yihiin ku dirayna waa garan weyne. dadka iyagii iyo ehelka iyagii weeye, iyaga intaa u dhaafi mayno. iyaga waxaan keliyo intaa ugu darayaa sharciga uunbaa inoo dhexeeya. waxaad sheegteen daalo inay baaba'day, waxaa ka warrami doona shaqaalihii joogay iyo waayeelka deegaanka. waxaad kale oo sheegteen in maxaan idhaahdayey wasaaraddu waraaqa bixiso oo ay u jarto maxaan ahdayey baabuurta u soo jarto. warqadahaasna waa laydinka rabaa caddayntoodii. laamaha ku shaqa leh ee laamaha amniga, haddii ay tahay maxkamadaha xeer ilaalinta iyo qaybaha booliiska iyo dhammaan arrimaha amniga ee uu guddoomiyaha gobolku ka mid yahay, baanu arrintaa u gudbin doonaa, waana idiin haysanaa. ma aanan samri waayin, laakiin waxa weeyaan beenta waa la gubaa, waxaan la hubsan waa la gubaa. sooreey intaa idiin dhaafi maayo, amniga inoo dhexeeya. waxaan bulshada kiliibkan dhegaysan doonta aan la wadaagayaa daalo inan dhibi ka jirin, degaankana aan u mahad celinayo, iyada oo rag nagu qaali ahaa oo buurta voluntary kaga shaqeeya sida waayeelka maanta nala jooga oo raggii waddada samaynayay ay ka mid yihiin. aan leeyahay halkii nagala haya waana mahadsantihiin, aadna waa idiin salaamayaa. haddana waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha ama maamulaha noo qaabilsan qaybtan iyo raggiisa. fadal master abakar.